السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaan qaadan doonaa markaa barnaamij AI ah oo artificial intelligence ah oo af Soomaali ku shaqeeya marka barnaamijkan wuxuu ku shaqeeyaa qaab ah inuu ku akhriyo buugaagta Soomaaliga ku qoran iyo waxyaabahaas marka luqado kale kuma shaqeynayo waa barnaamij cusub ee kusoo kordhisay shirkadda Microsoft marka ay isla tijaabina muuqaalkan yar ee aan asaga ku fiirinayno qaabka wax uu akhrinayo bal Shirkadda Amazon waa shirkad weyn oo aasaasay sanadkii 1994 waxayna bixisaa adeegyo iibinta online, iibinta iyo adeegyo kale. Waxay bilowday inay bixiso adeegyada cloud-ka ee AWS sanadkii 2. marka qaabkan oo kale ayaa rabtaa marka inuu ku akhriyo Soomaa muuqaalkan aad uga hadli doonaa marka waa inaad daawataa bilow ilaa dhamaad hadda waan ka soo baxayaa marka sida uu ku akhriyo waxa u baahan tahay ugu horeyn application-ka la yiraahdo Microsoft Edge browser-kan ayaa shirkadda Microsoft ayaa soo saartay AI-gan oo af Soomaaliga ku akhrinayo waxa qasab ah marka inaad soo degsatid browser-keeda si uu kugu shaqeeyo AI-gan ugu horeyn marka waxaad soo galaysaa Play Store kadibna qaybta search-ka ayaa waxaad ku qoraysaa Microsoft Edge kadibna waa ku soo bixi doonaa aniga hadda update ayuu leeyahay laakiin adiga waxa laga yaabaa inuu ku dhaho install marka install soo dhaho kadibna waxaan isku imaan doonaa application-ka dhexdiisa application-ka waxa laga yaabaa inuu qaabkan kugu soo baxo qaabkan markuu kugu soo baxo waxaad tagaysaa marka website-kii aad rabtay marka aniga tusaale ahaan hadda website-kan oo kale ayaan booqanayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa marka article-kan ugu horeeya يعني هذه قرالك أربتي إنه أقريه أما وحي بوجي أربتي راتين سنساس وكو أخرنا مركا هذا حارة مركا قرال كان أف Soomaali وكو قرن ويب سايت كان أف Soomaali وحسو قرأ إنه وحيس أقري ما دام أنا كجاري كريم ربنا إن دقيستو مركا وحن كلفنا مركا علامة هو سي دحل تعالو سدحل دبع علامة مركا كلفتي وحكسي دور نزل ماشي قرنتها هاي read aloud ماشي قرنته ماشي زي كلفنسا qaybahay u kala baxaan marketingka kadibna sidaan ay ku akhrinaa hadaadan sidaa rabin waxa laga yaabaa inuu kugu soo daro dheedkan iyo waxyaabahan oo kale marka waxa iska dhigaysaa cancel qaybtaas laba qaab ay u isticmaali kartaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa barnaamijkii marka wixii aad rabay oo marka xagga kama soo saaray waad u jeedaan calaamadii buugga marka waa ka laabanayaa website kale ayaan booqanayaa marka inuu ii soo saaro ayaan fiirinayaa website-kaas website-kan ayaan booqanayaa asagana af Soomaaliya waxa lagu soo qoraa marka waxaan ka dooranayaa meeshii ku qoran tahay waa maxay cloud computing article-kaas labaad ayaan ku dhufanayaa article-kaas kale inuu ii akhriyaa rabaa marka qaybta kore waad u jeedaan wuu ku soo saaray calaamadii buugga ahayd marka qaybtaas ayaan ku dhufanayaa marka calaamadaas ayaan ku dhufanayaa waad u jeedaan marka hadda dheedkii iyo wixii dhan waa uu gareebay qoraalkii iyo sawirka bas ayuu soo qaaday marka qoraalka ciwaankiisa iyo macal paragraph-kiisa ama qoraalka nuxurka meesha ka bilaabanay meeshaas ayuu soo qaaday marka saad u dooratid adigana waxaad soo galaysaa qaybta ay ku qoran tahay ayay ku dhufanaysaa eeda saddexda labada xariijin kor ee ka saarantay marka hadda inuu ii waa maxay waxa laga yaabaa marka aad English ahaan inay kugu saaran tahay saad u dooratid marka luqadda Soomaaliya aad ugu soo dhigatid waxaad sameynaysaa qaybtaas geeska ay ku dhufanaysaa qofka saaran yahay kadibna waxaad ka dooranaysaa hadda AI-ga magaciisa waxa la yiraahdaa wax natural ah oo si dheer marka waxaad ku dhufanaysaa meeshan language kale inay kugu saaran tahay laga yaabo Soomaaliya uusan ku ahayn meeshaas kadib dhagsi kadibna qaybta searching-ka waxaad ku qoraysaa Soomaaliya marka laba AI oo laba cod oo kala duwan midna waa gabar midna waa wiil marka midkan waxa la Muuse gabadhan waxa ay lahaa waxaana fiican markii wax ku akhrinaay AI-da midka ugu fiican waxa waaye ubaxda ugu fiican marka hadda ubax ayaa dooranaya haddaad rabtid markaa midkaa rabtid ku soo qancin waa kala soo ogaan kartaa kadibna waad ka soo laabanaysaa
kadibna markaa haddaan soo bilaabano waa maxay cloud computing marka waa inaad ogaataa inuusan ku akhrin karin luqadaha kale ee ajaanibta waxyaabihii luqadahaas kale ay ku qoran yihiin ee aad soo qaadato inta badan maba akhrin karo haddiisan qaabka soomaaliga u qormo uusan u qormaynin maba akhrisamaayo oo ma karaya aygan marka aynu bilaabano muuqaalka isticmaalka xogta iyo adeegyada kombuyuutarada oo laga helo internetka iyadoo aan loo baahnayn in kombuyuutar ama software gaar ah la isticmaalo adeegyada cloud computing marka waa ujeedaan qaabkan u akrinaya luqad soomaaliga si saxda ay u akrinaysaa wax markaa rabti inaad markaa aad dhageystid buug lagu akhriyo oo kale waad adeegsan kartaa ayagan fadlan waxaan ka codsan lahaa haddii aad muuqaalkan ka heshay inaad like noo saartid sidoo kale haddaad janaalkeena ku cusubtahay subscribe noo saar si aad casharadeena ula socotid oo aad wax badan nooga faa'iidid anagana wax badan aan kaaga faa'iidno mahadsanidin